asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu waxaana wanaagsan asxaabteena qaaliga hamil walba joogtaan waxaad ku soo dhawaataan muuqaal kooban muuqaalka waxaan kaga hadli doonaa allaidinkii qormo yar oo halkaani inooga muuqata waxayna ku saabsan tahay dadyowga inta badan tiridyada sharciyadooda aysan ku qaadan oo tiridyada ku degdega marka aan isla eegno qormada waxay tahay waxaan maalin walba go'aansadaa inaan tireed aan sharciyada waafaqin inaanan qaadan balse waxaan is arkaa anigoo durbaba qaatay tireed koo wax ka dhiman saa darteed maxay tahay xalkaygu marka haddaba marka su-aasheedu waxay tahay sideen ku noqon karaa ruux xakameeya sharciyadiisa kuna dhaqma haddaba waxaan isla eegaynaa sida aad ku noqon kartid ama aad ku yeelan kartid qof noqdo sharciyadiisa mar walba ku dhaqma ama xakameeya waxaa jirta xarfo yaroo lasoo gagaabiyey oo inta badan bahda berlabefekes ee asxaabta ay la wadaagaan hase haatee xarfahan lasoo gagaabiyey waa xarfo qof walba fahmi kara waana xarfo af soomaaliya ku salaysan haddii aad doonaysa inaad noqotid qof sharciyadiisa xakameeya dhowrkan xaraf oo shantan xaraf inaad mar walba xoogga saartid aad ay muhiim ku tahay maxay tahay marka xaraf ugu horeeya waxay weeyaan waa b k d k f soomaaliya haddii loo yidhahdana waa ba ka da ka fa xarafka ugu horeeya ba'da maxaa laga soo gaabiya waxay tahay qofka doonaya inuu wax qabsado ama sharciyadiisa xakameeyo ugu horreyn barasho waayo xirfadaada haddaad aqoonaadan u lahayn ama si fiican aadan ka siin waxaad dhowraysid ma jirto oo sharciyadaada maba xakameynaysidba oo mana ku dhaqmaysid waayo cilmi ma ulihidba soo maaha marka forakis haddii aad rabtid inaad shuruucdaada xakamaysid baro si qoto dheer u bar weliba yaysan kaa noqon midaad iska sahwiso oo midaad durbo aad iska dulmartid yaysan kaa noqon sida noloshaada mustaqbalka dambe aad wax ugu qabsan doontid ahaan ugu fikir yaysan kaa noqon mid yar oo maalintii aad hal mar inaa isha marisid keliya aad ka tagtid yaysan noqon barasho waa ereyga koowaad oo ba'da waxaa laga soo gaabiya waa barasho inaad si fiican aad cilmigaad u baratid xarafka xiga muxuu ahaa waa ka ama kay ku celcelin maxaad ku celcelinaysaa marka inaad ku celcelisid waxaad soo baratay adigoo dib u eegaya wixii hore u dhacay oo tireedid ahaa taas waxay tahay cilmigaad baratid inaad mar walba aad dib u eegtid oo baagtisna aad samaysid adiga muhiim ku tahay waayo goormee kalsooni imaadaa kalsooni waxay imaadaa waxay tahay waxaad baratid markaad aragtid inay shaqaynayaan ayay kalsooni imaadaa haddii markaad doonaysay in shuruucdaada ay ahaadaan mid aad ku dhaqmaysid qodobka labaad ee ah ku celcelin mar walba xooga saar oo ku celceli waxaad soo baratay wixii hore u dhacay inaad aragtid waa muhiim qodobka saddexaad muxuu ahaa d ama da waa inaad dulqaad leedahay kow waa soo baratay cilmigii waad ku soo baagtisan baad soo samaysa waa ku celcelisa kadib dulqaad sameey inaad sugitaan leedahay haddii tireed aad weydid inaadan qasbin tireed maalintaasi aad ka faraxalatid haddii maalin walba aad u soo gashay inaad tireed qaadatid adigun baa ku jabaya oo tireed ayaa ceyrsanaysaa maantoydin tireed suuqa haddaa imaadid oo aad aragtid in tireedka uu suuqa waxba fursad uusan bixinin iskaga tag sidoo kale xaraf kale muxuu ahaa waa ka ama key qofba sida u taqaano kalsooni waxaan soo aragnay barasho waxaan soo aragnay ku celcelin waxaan soo aragnay dulqaad xarafkana waxay tahay waa kalsooni kalsoonida maxay tahay cilmi waa soo bartay waan ku celceliyay dulqaadaan soo sameeyey kalsoonida maxay tahay kalsoonida waxa weeyaan wax kale ma ahan tireedka haddii fursad uu ku siiyo sharciyada kuu buuxiyo inaad marna ka baqin oo aad qaadatid dad waxaa jiro tireedkii shuruucda ugu waafaqay maba qaadanayaanba oo waxay ka baqanayaan tireedka inuu asal kaga dhaco marka mar walba kalsooni sameey kalsooni aad wax ku qaadatid yeelo qodobka ugu dambeeya maxay tahay fulin maxaa la fulinayaa marka kalsooni waa soo aragnay dulqaad waa soo aragnay ku celcelin waa soo aragnay barasho waa soo aragnay fulin maxaa la fulinayaa waxaad fulinaysaa waxaad soo baratay ficil ahaan u bedel tusaale inta badan waxaad aragtaa youtube wax ka daawataa ama asxaab wax kula wadaagta ama group wixii doono ha ahaadaan dhegta unbaa wax ka maqshaa marka cilmigaad soo baratid ficil ahaan u bedel waxaa samaynaysaa kondeema qaado istijaabi qof wax qabsan kara inaad tahay bal egbort wixii aad soo baratay ficil ahaan u bedel marka qodobadani runtii waa qodobo aad iyo aad u muhiima hase ahaatee mar walba haddii aad rabtid inaad tireedkaaga u ahaa tireed high quality ah oo tireed aad u sarreeya ah oo mar walba runtii tireed qurxan oo ku ahaa haddaad rabtid
shuruucdaada mar walbo eeg oo dib u fiiri checklist samayso ha isdhaafininba waxaad ku xisaabtantaa tan waxaan ka hadlayaa mawduucan waxay tahay dadyooga akoonka lifeka haystaan ka hadlaya xaqiiqatan maanta kisteerta aad ku dartid akoonkaaga adigu qayb u weyn baa idka leedahay taa macnaheedu waxay tahay kasoo qaadidii soomaaliya aad joogtid shaqooyinka soomaaliya inta badan laga shaqeeyo waad aragtaa dadyooga dibadda laga biilo oo qoysaska familkooda u maqan yihiin qoyskii maanta aad isdhihi karto waa qoyskani qoys waxa weeyaan runtii iska macquula ugu yaraan waxaa loo soo diraa lacag 500 ilaa 300 inta u dhexaysa adiga marka haddii akoon 10k aad haystid oo weliba life ku ah bishii meeqa ka samayn kartaa bishii intaas in ka badan ka samayn kartaa haddii aad tahay laakiin qof iska adag weeyaan marka mar walba ku xisaabtan marka familka kooban 12 qof ilaa 15 qof ayaa inta badan waxaa lagu biilaa ama runtii ay wax ku qabsadaan lacag intaa 500 ilaa 300 in lacag qoysaska waxaan ka hadlayaa normalka ma ka hadlaya qoys high ah iyo qoys runtii iska low kama hadlaya qoysaska inta ugu badan ayaan ka hadlaya marka mar walba waxaad ku fikirtaa adigu akoonkan waxaad ku dartid adigu qayb weyn aad ka leedahay maanta shirkadani kuu dhiibtay akoonkani ugu yaraan $10,000 kuu dhiibtay waxay kaa raadinayso bal eeg horta haddii aad ku dartid $100 boqolkiiba 20 ay qaadanaysaa 80 boqolkiiba aad qaadanay waxay kuu dhiibtay ogow waa akoon 10k